kusoo dhowaada Maine Public News Connect, wararkii toddobaadlaha ah oo idinka imanaya idaacadda dadweynaha Maine oo ku baxaya afafka Isbaanishka, Faransiiska, Bortugiiska, Soomaaliga iyo af Ingiriiska. bismillahi raxmaani raxiim. dad muhaajiriin oo la qabtay dhimista maalgelinta qaxootiga dhibcaha imtixaanaadka oo hoos u dhacay. galab wanaagsan daawadayaal, maanta waa maalin jimcaha bisha Februaayo 7 waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa qodobadii wararka ugu muhiimsanaa toddobaadkan gobolka Maine oo idinla socodsiin anigu ah Maxamuud Xasan. haatana kusoo dhowaada wararkii oo faahfaahsan. dad muhaajiriin ah oo la qabtay dhalinyaro reer Massachusetts ayaa oo ay xireen laanta socdaalka iyo dhaqangelinta kastamka ayaa toddobaadkii hore muddo kooban lagu xiray xabsiga degmada Cumberland ee magaalada Portland. ma ahan waxaan caadi ahayn in xabsigu uu dadka ku hayo dad ay soo xidheen ICE oo ay ku jiraan kuwa iyo gobollo kale laga soo xidhay. laakiin kiiska Zenaida Barrera oo 60 jira ayaa isagu qayladhaan badan laga muujiyey tallaabada madaxweyne Donald Trump uu ku hayo arrimaha socdaalka. sababtoo ah Barrera ayaa iyadu si sharci ah waddan ku joogtay iyadoo qoyskeeda u codsatay magangeliyo siyaasadeed. ICE ayaa iyada ku xidhay guri maxkamadeed oo ku yaala Massachusetts kadib markii ay la sheegeen in khilaaf u dhex maray iyada iyo wiil walaalkeeda. Barrera ayaa la sii daayay jimcihii lasoo dhaafay. ICE-na ma ayna soo celin jawaab markii la weydiiyey faahfaahin dheeraad ah. dhaqangelinta socdaalka. inkastoo haddaba la xiray Barrera, ma muuqato koror la taaban karo oo ka jira gobolka Maine oo lagu qabanayo dadka muhaajiriinta toddobaadkii hore labadii toddobaad ee uu madaxweyne Trump xilka hayay. taas waxaa laga soo xigtay qareennada socdaalka ee Maine kuwaas oo sidoo kale sheegay in qabashadu ay sii kori karto mustaqbalka. isla markaana qareemada ayaa waxay sheegeen in weerarada socdaalka ee sida aadka loo hadalhayo ee ka jira magaalooyinka waaweyn ee Chicago iyo New York iyo meelo kale ay abuurtay cabsi baahsan oo ka dhex jirta dadweynaha. taasna laga yaabo bay yidhaahdeen inay tahayba yoolka oo arrintaas uga dan leeyahay maamulka madaxweyne Trump. maadaama uu jiro haddaba jawigan cabsidii, waxa ay iyagu qareennadu ku dhiirigeliyeen dadweynaha reer Maine inayna ku faafin baraha bulshada in la arkay saraakiisha ICE iyadoo aan warkaa laga fiirsan oo aan la hubsan. sababtoo ah waxay yidhaahdeen waxaa keliya taas sii kordhin kartaa jawigan jahwareerka ah. dhimista maalgelinta qaxootiga. marka laga soo tago dabagalka soo galootiga iyagoo aan sharciga lahayn, maamulka madaxweyne Trump waxa uu si degdeg ah ugu dhaqaaqay inuu gooyo dariiqyada sharciga ee iyagu socdaalka oo ay ku jiraan barnaamijyada ogolaanshaha qaxootiga kaasoo 10 sano isagu soo jiray. kadib haddaba markii ay hakiyeen soo galootiga cusub, maamulku waxa uu sheegay hay-adaha dibudejinta inay jarayaan dhaqaalihii ay siin jireen qaxootiga horay u joogay dalka. caadi ahaan dowladda federaalku waxay u celisaa hay-adaha dibudejinta kharashyada qaarkood oo la xiriira baahiyaha asaasiga ee dadka qaxootiga kuwaas ay ku jiraan guriyeynta iyo cuntado. dhimista ayaa keentay in wakaaladaha dibudejinta ee Maine ay ku dadaalaan inay helaan oo ay raadsadaan ilo kale oo dhaqaale oo ay ku maalgeliyaan in la taageero ilaa 200 oo qaxooti ah oo iyagu dhowaan yimid. dhibcaha imtixaanka oo hoos u dhacay. ardayda Maine ayaa sanadkii hore waxa ay heleen celcelisaan xisaabta iyo maadada akhriska dhibcaha ugu hooseeyay muddo 30 sannadood ah, sida lagu sheegay qiimeynta qaranka ee fasalada 4 iyo 8aad. dhibcaha ardayda dalka oo dhan ayaa waxaa ku yimid hoos u dhac sanadkii 2022, laakiin Maine hadda waxay ka mid tahay 14 gobol oo aad uga hooseeya heerka celcelisaan ay joogaan ardayda qaranku. bayaan haddaba ka soo baxay wasaaradda waxbarashada ee Maine ayaa waxa ay ka digaysaa in wax lagu cabiro natiijadan lagu saleeyay xogta qaran, waxaana iyagu ay xuseen in ardayda fasalka 4 ee qiimeynta qaadatay sanadkii hore ay iyagu ku jiraan fasalada barbaarinta xilligii ugu sarreeyay xanuunka COVID-19 faafitaankiisu. taasina waxa ay ka dhigtay bay yidhaahdeen in ardaydaasi si aad ugu nuglaadaan xagga hoos u dhaca waxbarashada ama khasaaraha ku yimaada waxbarashadooda.
soo la xidhiidha cudurkii faafayey. Wadayaal halkaad nagala socoteen waa Main Public News Connect. intaas iyo sarag dambe waad mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan u mahadcelinaynaa saaxiibadayada bulshada ee naga caawiyey soo saarista barnaamijkan. Main Public News Connect waxaa suurageliyey bankiga Seaport Credit Union, dukaanka Hannaford Supermarkets, IDEX, fiiska guryeynta ee Maine, Coastal Enterprises, Cover Maine, ururka Sam L. Cohen, Koo iyo Patricia Ewan, ururka Maine Health Access, iyo xafiiska adeega bulshada ee Maine. Main Public News Connect waxaa suurageliyey Patricia Ewan oo ku howlan soo dhoweynta bulshooyinka iyo dhaqamada kala duwan. Seaport Credit Union waxaa ka go'an daryeelka dhaqaale ee dadka reer Maine oo ay ka shaqaynayeen tan iyo 1931. waxay xarumo ku leeyihiin Augusta, Scarborough, Portland, waxayna dhowaan furi doonaan mid ku taal Lewiston. seaportcu.org. suuqa Hannaford wuxuu u dabaaldegayaa shaqaalahooda iyo macaamiishooda oo ah dad kala duwan iyo dhammaan bulshooyinka. waxaa suuqa ka go'an inay abuuraan goob soo dhoweyn si wada jir ahna waa meel ka sii weyn suuq. si aad wax badan u ogaato booqo hannaford.com. haddii aanu nahay Maine Housing waxaan ognahay in lahaanshaha gurigu uu yahay furaha. barnaamijka qofka ugu horreeyay qoyska ee Maine waa barnaamij fursad u siinaya inay guri helaan dadkii horay aan guri qoyskooda u yeelan. waa suurtagal inaad guri yeelato. faahfaahin dheeraada kala soco mainhousing.org. haddii lagaa gooyey caymiska caafimaadka ama noloshaada uu ku yimid isbeddel weyn, waxaad heli kartaa kaalmaad iskaga bixiso caymiska caafimaadka adigoo booqanaya coverme.gov. waxyaalo badan ayaa iska beddelay MaineCare. ka warhay si aad caymiskaaga u ilaashato oo warbixintaadii ugu dambaysay ku qor mainconnection.gov.